telefishinka Royal ayaa booqday xarunta dabaasha ee Leila Village ee magaalada Hargeysa waxaana warbixin nooga diyaariyay waryaheena Faisal Yusuf Kacaan oo inooga soo warama magaalada Hargeysa. halkani waa meesha lagu dabaasho ee Leila Village oo ku taala koonfurta magaalada Hargeysa. haddaba telefishinka caalamiga ayaa waxa uu booqasho ugu tagay Leila Village si aan uga wareysano waxyaabaha halkan ay ku qabtaan oo ka mid yihiin dabaasha kaasoo ay ku dabaashaan rag iyo dumar inkastoo waqtiyo kala duwan la siiyay ay raguna ku dabaashaan saacado gaara dumarkuna ay dabaashooda ku gutaan waqtiyo gaara. haddaba Leila Nuur oo ka mid ah mulkiilaha Leila Village ayaan wareysi kula yeelanay gudaha goobta dabaasha oo nooga warbixisay waxyaabaha ugu tala gashay macaamiisheeda. walaal aad baad mahadsan tahay goobtan magaca Leila Nuur baa la dhahdaa ma Leila balcad ku macdheer waxaan ku soo koray muddo badan qurbaha waxaan ku soo noqday dalkii hooyo marka goobta waxaan ka diyaariyay meel lagu dabaasho qol steam room ah waxaan kala wadnaa cafeteria iyo bushaaro koofeer adigu fiiladana isku xiran ayaan wadaa. marka waran shacabka reerkiisa soo dhaweeyeen goobtan oo goob lagu dabaasho oo tiri rag iyo dumar ku dabaalan karaan inkastoo waqtiyada loo kala duway oo raguna waqti gaar ah ay ku dabaalan karaan dumarkuna waqti gaar shacabku sidoo arkan shacabku inta yani nootmada wallahi way ku raaxaysan waliba dhalinyaro fara badan baa noo yimaada hablo badan waxa soo jiita hablanimada yani maadaama ay gabdho ay hayso meeshii oo ay private na haystaan oo albaabka u xiro way ka helaan waxaan imkan ugu soo biiray hooyooyin iyo caruur marka way soo dhaweeyeen waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay caruurta kale waqtiyada dugsiyada ka fasaxayeen oo kala yimaadaan miya waxay noo yimaadaan jimcaha iyo khamiista labada cishay fasaxayeen bay noo yimaadaan. ka waran sidee caruurta iyo dadku waaweyn markaas hal goob ku dabaalan karaan mise caruurta waxa ugu samaysan goob u gaar ah oo iyaguna ku dabaashaan ma imika maadaama dabaashan aan ugu talagalay inaan yani aan tijaabo dad business sameynaysa waa la tijaabiyaa marka maadaama goob weyn haysto haddaan arko in businessku dhaqaale soo baxayo oo dadku jecel yihiin waan sii badin karaa laakiin halkan waxaan u diyaariyay alaabo yar oo caruurta isku meel bay ku dabaashaan ku jawaabo laakiin waxaan maadaama caruurta ku qoysay meesha ku dhaartayaga waxaan u diyaariyaa qalab aan u xiro oo safety u noqonay marka ayaan u diyaariyay. ka waran wiilasha kale inta badan waxay tagaan meel fog oo batalaal oo kale berbera waqti fara badan ay kaga lumtay kharashba maadaama aad u soo dhaweysay oo goobtan ay ku dabaalan karaan qofkii dabaasho xitaa uu dabaal ku baran karo taa qudheeda barka hore way noo yimaadaan inamadu waxay noo yimaadaan jimcaha gelinka hore oo kale way soo dhaweeyeen laakiin inama fara badan weli maan la kulmin laakiin kuwa noo yimaada waxay dhahdeen batalaalo waan maqlay inay tagaan markaas kolley dada yimaadaan xamaranaya inay ka maarmi doonaan transportkii badnaa. maxaa goobta wax daweyn oo lagu daraa jira oo biyahan ilaalinaya mise biyaheeni caadiga ahaaba biyaheeni caadiga ahaa baan shubay 3 booydood baan galay laakiin kaloor baan ku shubnaayo waan eegno taskaraynaa kaloor baan ku shubnaa markaa biyo marka maadan way sii deynaa si goobta wala difaadana biyo cusub lagu shubaa. waxaan jeclaan lahaa imo kale waxaad tiri goob cafeteria oo sameynaa oo dadku ku sharaabaan waxay ka bedeli kartaa systemkaaga hore waxay ka bedeli kartaa caruur markay gaajoodaan oo kale waxay ku khasabtaa aniga shakhsi ahaan isku saaray mas'uuliyiin aan shaah soo kariyo laakiin haddaan cafeteria samaysto dee wixii baan diyaarinaya Soomaaliintaan imanin waayo waxaan gaarsiin lahaa inay dalkooda aaminaan dalkeena in yani wax kasta oo adduunku haysto dalkeena ka helno ayaan gaarsiin lahaa oo aad ku raaxaysan karta dalkaaga hooyo. gabagabadii ayaan joognaa warbixinteena haddaad jirto cid aad fariin u dirayso ama cid aad leedahay wax naga soo boorgareeya ama cid kale oo aad fariin gaarsiinaysa hadday jirto wallaahi anigu waxaan gaarsiin lahaa dawladda oo kale imika wadada oo kale halkan wadadan soo lagayseen inta ayar aniga sameeyo de waxay aan jirtay meel gabi ah marka yani dawladii hoosan dadkii la shaqeynayay markaan waxaan dhalahay dawladda oo kale marka ma goobo ganacsi maadaan ama qof wadani ah وديما دو دعوة سو جدي ولعقنا رادين محل رضايا dadka la shaqeeya san horumar u gaarsiino dadkii dawladdu markooda shaqo sawir mar la gaaray moogtay laakiin wadankii